بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ساكي waxaan rabaa inaan bandhig yar oo hordhac ah inaan soo bandhigo oo ah maxaa la yiraahdaa buug la yiraahdo garside oo aan ugu tala galay ama aan ka qoray sanadkii la soo dhaafay iyo wax qabadkii wanaagsanaa ee dawlad goboleedka Galmudug buugaas dabcan marxalado badan soo maray wuxuu ah 3 bilood leh adiga waxa jirta xilliyo aan munaasabado 3 bilood u sameeyay hadeerna waxa uu dhamaaday wuxuu gabagaboobay in sanadkii uu soo koobo oo sanadkii maxaa la yiraahdaa dhameystiro buugaas hadda daraaf ahaan ayaan u daabacay waana maxaa la yiraahdaa dabcan وبلاك أو ويد وايد كلر كواجر دون إن شاء الله تعالى بوجان وحكم رحقبت كي دولة الجلمذوق هل كي السنة إلى صوت عفي وحكم بيها لما بقول يو محلي هذا لحدا يسجد بيج وحرجينا إن النقضاء داتو تعالى أن من وليات لجنا فيريو لجنا أجاده وحقبت ك هذا بليرة هذا حكومة دحلية كجرتها وحيل قرأ سيدانو كلا داتا لو أروح أذاق وايه ودي بدن تاي لكن وانو هليلي ماشان هذا مطبعات يروايه بالله مكتبة وايه أنو ترجلني معناها محلي هذا stationery وحيابها يقول قصبي كم تا إن هوايات وحقوري ده لا هي إن هلو فرصة دي حقوري لها مش حقوري لها مش حقور دابع لها هنتي كسكو مدحتويدا iyo madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta sarsare kasukow waxa ku jira wasaarado qayb kamid ah wasaaradaha oo aanu arko runtii inay ahaayeen dad xoogaa shaqo wanaagsan qabtay dadaalay isma naqaano nagu wasiirada laakiin de wax qabadka waa la qofkii dabcan dadna way soo bandhigaan dadna way qari karaan inta aan arkay sida wasaaradda amniga kale maaliyadda hawlaha guud qorsheynta arrimaha gudaha dhalinyarada isboortiga warfaafinta dabcan iyo wasaarado kale way ku jiri karaan marka wasaaradahaas waxyaabaha aan ka xusuusto waxa kamid ah waa wax qabadkoodii activity-goodii buugan oo kale waxaan ka qoray dawladda Ximan Xeeb oo aan kamid ahaa markaas xubinada ka shaqeeyo mas'uuliyiinta kamid ahaa waxaan ka qoray xilligii madaxweynaha Tiicay uu joogay waxaan ka qoray buug 180 page ah runtii xilligaas waxa qorayay madaxweynaha message waxaan diyaariyay maxaa la yiraahdaa buug oo ku saabsan wax qabadkii muddo adiga 2 sano ah hase ahaatee xoogaa madaxweynaha markaas waxa laga yaabaa in isku baraarugin waan hayaa waxaan ka daabacay laakiin data ahaan waan u hayaa sidoo kale waxaan wax ka daabacay oo buug ka qoray xilligii Ximan Xeeb madaxweynaha Baarleex oo ayadana aan mas'uuliyiinta markaa xilliga kamid ahaa waxa la oran karaa asagana message-ka waan siiyay laakiin ma ahmiyad gaar ah ma una siinin asagana sidoo kale ayadana asagana 160 iyo adiga dhowr page waaye asna waan hayaa madaxweyne qorqorna sidoo kale waan ka qoray sanadkan aan qoray waxa laga yaabaa inaan qoraalka siyaasadda ku xanibo halkaas ku joojiyo runtii hadaa wax qortid waxa arkaysaa ila badan ama irda badan oo qorista u baahan aniga waxaan jeclahay inaan dad amaano runtii inkastoo la igu eedeeyo la igu dhaleeceeyo oo aan ku eedeysanahay oo ku dakanoobo oo mushkilada kala kulmo laakiin ma ka harayo taas dadka muhiimka ah ee dadka bulshada macnaha u leh hadii kuwa hore jiray iyo kuwa hadda jira haday yihiin inta waxaan diyaar u ah inaan comment yar ka sameeyo waxaan rajeynaa ama aan maxaa la yiraahdaa codsanaya dadka wax dhaliila ama waa la dhaliili karaa dadka wax dakaneeya inaan la igu dakanayn inaan wax yar oo advertisement sameeyay Soomaaliya dadaalay oo walaalkaya inaan amaano oo aan maxaa la yiraahdaa war qofkaan uu socdaa hal mid noqon yiraahdo inaan ahayn wax culays oo bilaa tawfiiq